wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swam ayaa saray u qaaday dadaalada diblomaasiyadeed oo lagu xalinayo ismariwaaga siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka. James Swam ayaa la kulmay madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdillaahi Deni isagoo ku qanciyay inuu ka qayb galo shirka golaha wadatashiga qaran ee uu ku casuumay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo Muqdisho ka qabsoomaya maalinta biri oo taariikhdu ay ku beegan tahay 5 bisha May kadib markii uu baaqday dhamaadka toddobaadkii hore waxaana uu kulankan qayb ka yahay kulamadii uu horay ula qaatay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale madaxweynaha Galmudug waxaana arrinkan looga gol leeyahay sidii la isugu soo dhaweyn lahaa madaxda dawlad goboleedyada maamulada Puntland iyo Jubbaland. sidoo kale Ambassador James Swam ayaa la kulmi doona madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo shalay dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarwa maamulka Jubbaland. inkastoo hoggaanka dawladda federaalka looga fadhiyay qabashada hawshan isu soo dhaweynta madaxda ay iskhilaafsan yihiin iyo sidoo kale dadka kale ee ka aragtida dugan, laakiinse waxa wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya uu isku xilqaamay sidii uu u xalin lahaa ismariwaaga siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda dawladda kuwa dawlad goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda hanaanka hogaamineed ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. tallaabada uu qaaday James Swam ayaa waxay u muuqataa mid daba socota shir dhawaan ka dhacay dalka Uganda kaasi oo qodobadii ka soo baxay midkood lagu dalbaday hanaan lagula socon karo xaaladda siyaasadeed ee gudaha Soomaaliya. si kastaba madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cadaadiskii ugu adkaa kala kulmaya xubnaha beesha caalamka iyagoo ugu baaqay inuu ka shaqeeyo siyaasad la isla ogol yahay iyo isu soo dhaweynta xubnaha kale ee ka aragtida duwan ee isugu jira mucaaradka iyo madaxda dawlad goboleedyada. laakiin dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku adkeysanaysa in ay geedigeeda siyaasadeed sideedii ku wadato laakiin lama oga natiijada ka soo bixi doonta. Cabduqaadir Maxamed, CBA, magaalada Muqdisho.